wasiir dowlaha arrimaha gudaha, maamulka gobolka, maamulka degmada, ganacsatada oo hadda inagala joogo shirkadda Salaama ama Usaama Kuryasamo, taliyaha maamulka gobolku ka mid yahay, maxkamadda, saraakiisha ciidamada, saxaafadda, ciidamadoo dhan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi aad bay aan ugu faraxsanahay inaan maanta aynu hal ku kulanno magaalo madaxdii ganacsiga Boosaaso oo igu dheer runtii aniga aadna aan sida la sheegay iyana way yaqaaniin anna waa aqaan aad baan u aqaan. waa magaalo madaxdii ganacsiga, waa meel qadiimi ah. runtii aad baan waxaan u jeclahay inaan ka shaqeeyo ama la shaqeeyo dadkeeda iyo ganacsiga. waana soo marto sida la sheegay airportkaas wasaaradda duulista hawadan ka soo shaqeeyey oo aan bilaabay airportkaas maxay tahay raggii wax ka furay baan ahaa ka mid ahaa oo ila kowsatay wasaaradda arrimaha gudaha oo GBLG-yada tan iyo waxaan maanta soo furaynay baan raggii dadkii wax ka bilaabay baan ka mid ahaa. aad bay u wanaagsan tahay inaad gurato midhihii aad beertay, beerta aad beerto. marka waa ku faraxsanahay saaka inaan kormeer ku soo maray waxyaabahan wax ka ogaa bilowgeedii. farxad weyn bay tahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay ganacsatada waaweyn oo dalalka kale ka timi oo ku soo dhiiratay oo iyadoo waxyaaba laga sheegaya Soomaaliya guud ahaan ama Boosaaso meel ka baxsan magaalada oo maxay tahay meelihii haddii wax jiraan laga carari lahaa degay oo ku soo dhiiraday. aad baan ugu mahadcelinayaa iyana geesinimada ay muujiyeen iyo riskiga xataa maxay tahay haddii wax dhici karaanba waa khamaar baa la yidhaahaa. laakiin waxay markhaati u noqonayaan inaan nabadgelyo iyo wanaag mooyaane wax kala jirin. waan ku faraxsanahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay sida maamulka gobolka uu isu haysto oo mid qura u yahay iyo madaxda sare ee maxay tahay korjoogtada u ah ee maxay tahay loo soo wakiishay inay dowladda dhexe maxay tahay wakiil uga noqdaan. waa idinku bogaadinayaa sida aan maanta u arkay aad u wada shaqaynaysaan inaad u shaqaysaan sababtoo ah waxa shaqada khariba iska qabsi iyo isku kalsooni la'aan. marka dadkii meel wada joogaa inay kala dambaynta iyo walaal noqdaan. mid kale saa la socotaan waxay ku hagaagaan kala dambaynta, amniga, horumarka, maxay ahayd toy shaqadu, kala dambaynta iyo ixtiraamka ayay. marka way idinka muuqataa, waad ku ammaanantihiin, aad baa ugu ammaanantihiin. waxaan kaloo ku faraxsanahay meeshan aynu fadhino stationka markii ugu dambaysay iyo maanta aad bay u kala duwan tahay. waa garan waaye hadda. marka miyaan intaa Boosaaso miyaan ka maqnaa? may ahayn runtii inaan intaa ka maqnaado Boosaaso. hadda anaa waxoogaa yar odhanaya dadkii ballamihii dadkii aad ballanta lahayd reer barigii, reer Boosaasii. mar haddaad maxay tahay ilaa intaa la dhisayay kama maqnayd xoogaa yaa 9 bilood xoogaa xaggaagaa wax jiraa maan soconaya laakiin kaambeynaa lagu jiro. waa u soo xamaamo urursanayni. marka iyada qudhooda waxaan uga mahadcelinaynaa inay na arkaan annaga oo wixii aanu u halgamaynay hadda hayno. waa ku faraxsanahay. ilaaliskiisaa loo baahan yahay. marka waxaan isku boorinayaa in sidaa lagu hayo, wanaagga in lagu hayo. waxaan kale oo idinkula dardaarmayaa in askar iyo boliis u qalma oo ka shaqeeya inay ka shaqeeyaan oo la tuujiyey oo aqoon u leh oo maxay tahay sidii la arki jiray sidaa la arkay wuu ka duwan yahay. waatan uu sheegay
East Africa ama kale Africa ba saldhig sidaa u ekay waa ku yar yahay ama maba jiraa oran karaa marka dadkeedii waynu helaa dadkeedii aqoonta lahaa ixtiraamka lahaa maxay ahayd macnaa wiyan fahmayay sida waxa la geliyay iyo awoodda la geliyay iyo sharafta uu leeyahay taasi waa dardaaran waxaan kaloo ku faraxsanahay inaynu soo kormeerno waxyaabaha aad qabateen gudoomiyaha degmada ka gobolka qaybta madaxda gobolka oo dhan wasiirkuna kor jooga u yahay shaqooyinka ka socda Boosaaso aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad deserves waa tay xaq u lahayd bay heshay waa ku socotaa tallaabada iyada ku wada ayaan leeyahay ilaahayna way ku garab galayaan anana wixii aan xagga madaxda sare waxay qaban karto waa diyaar baan u nahay inaan la qabano amnigu waa fiican yahay waxay inaga wargeyn doonaa dibadda maalgashayaasha dibadda iyo dawladaha waataan hadda la u soo daayo ha arkeen amnigu aad iyo aad buu wanaagsan yahay awal qudheeda maba aad uma xumayn oo way ka dhacaan meesha la New York iyo baa ugu weyn adduunka habeenkii waa anagu waa joogi jiro maba kun mabarya loo sheegay kun mabaryo yaryar ee ku dhex jirana waa sida aad u wadaan hadda waa la dabar goyn doonaa waa cirib waa tirtirmi doonaan haddaad saa isu haystaan annana waxaan ku dadaalaynaa waa wargeynayaa wixii aan arko xukuumadda waxaan ugu wargeynaynaa in wixii xaggaas jira aad iyo aad indha ka duwan magaalooyin kale lagu eego magaalada ganacsiga waa magaalada ganacsiga airportkii weynaa dekadii maxay tahay ganacsatooyinkii waaweynaa waa isha qurahay ka nooshahay Puntland marka in il weyn oo firfircoon lagu eego oo dhug leh aad baan u raacsanahay anigu waana ka wargeyn doonaa intii awoodeyda anigu arrinka isaga ah horena waa uga qayb gal jiray waana ka qayb galaya waa ku dadaalaya aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan kaloo idinku mahadcelinayaa iyadoo jimcaha oo aad 7 casho soo shaqaynayseen 6 casho soo shaqaynayseen maanta ama jimcihiina iska tukan lahaydeen ama nasan lahaydeen hawlaha iyo shaqooyinka waajibaadka aynu qabanayna aad qabateen diyaar ku tihiin waa idinku mahadcelinaa waxa kale oo maxay tahay inoo yaala isxilqaamada ka mid qoladan la yiraahdo federaalku isxilqaan baan ku maqlay isxilqaan ma aha isxilqaan inaga dheegteen waa ugu horeeyay anigu halka kan shirkad isxilqaan la yiraahdo qolo isxilqaan la yiraahdo Puntland ka jirtay wali waa jiraan marmaray oo wadooyinka u dhaxeeya Galdogob iyo Gaalkacyo iyo taa kale ee wanaagsan la yiraahdo isxilqaan baa lagu qabtay isxilqaan marka isxilqaannimadiina wayna socotaa halkan wayna ka socotaa ganacsatadu maanta waa alxamdulillah barwaaqadii bay u xagaa baxeen oo meelaha roobka iyo caanaha iyo doonteene dabcan waa soo noqon doonaan waa in la soo degaa ganacsatada waa in si gaara loo ilaaliyaa waayo waxaan anigu Maraykan hadduu waxa ugu ixtiraam weyn oo waxa qura isku daafacda marka maartay waa ama taxi payer buu koonaya anigu cashuur bixiyana hada ula hadlaysaa marka waa laga fogaanaya moogta cashuurtu qiimo leedahay qofkana way qiimaysaa dawladdaas iyo dalkaana qiimay ugu fadhidaa marka ganacsatadu cashuurtana waa inay bixiyaan taa ay bixiyaan waa inay qiimo ku yeeshaan qiimo gaar ah waa inay ku yeeshaan maaha in privilege gaar ah loo samaynayo laakiin way leeyihiin ganacsatadu waxay leeyihiin cashuur dhaaf bay leeyihiin oo tasiilaad bay leeyihiin dhiirigelin bay leeyihiin ilaalin bay leeyihiin iyana waxa looga baahan yahay inay bixiyaan cashuurta waxa lagu ilaalinaya waa cashuurtaas
aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley jimcihii baa ina haya waa ku faraxsanahay hawshan aynu maanta qabanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddii aaba kuu rooyahay waana idin ku soo noqnoqon doonaa waxaan rajaynaynaa in qorshe loo sameeyo magaalada hadda madaxdii xukuumadda ka mid ahayd waaba joogaan laakiin haddii loo baahdana in la soo kordhiyo oo level intaa ka sarreeya ay halkan fadhido oo xoogaa la noqoto kolley waa iskula noqonaynaa aadna waa u mudan tahay baan qabaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka haddii aaba ku iyo wasiirada inaan laga maqmaqnaan ama la fadhiistoba loo bato aad bay ugu habboon tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu